السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو سوكسيد أكاديمي. maanta cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay cashirka faa'iidaysiga ah taasoo aan kaga hadlayno sidii table loogu baran lahaa si online ah. In badan waxaa idin dhigay iskuulo badan soo suuq geynaya waxaa idin baranaa table idinkoo indhaha ka xiran tihiin wax kaa dhigana perfect. Haddaba maanta adigu isbar. marka ugu horeyso waxaad soo kacsanaysaa browserkaada. fadlan haddaad subscribe inoo tahay waad mahadsan tahay, haddaadan ma ahayn inoo subscribe garay una gaarsii asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. waxaad ku dhufanaysaa subscribe-ka kadibna waxaad furanaysaa gambaleylka ama dhammaan ayaad furanaysaa. waxaad tagaysaa YouTube, waxaad ku qoraysaa meeshaasi ciwaanka ah 8club.com kadibna waxaad leedahay inta markaa dhacdo waxa ku soo baxayo shaashadan cusub. marka koowaad iska diiwaangeli oo waxaad leedahay sign in markaa dhacdo kadib waxaad leedahay markaasi individual markaa dhacdo waxaad kasii dooranaysaa sign up with Google. click markaan ku siiyo waxaan kasii dooranaya markaasi emailadeeda aniga ii kacsan kamid ah ayaan ku kacsanayaa. kadib halkan ayuu ku keenayaa. halkan markuu ku keeno waxaad leedahay markaasi start tv jungle-ka start ayaad leedahay. start markaa dhacdo waxay ku xiran tahay hadba internetkeeda haysato. meeshan waxaa ku yaalo intaas oo cashiro ah oo lagu barayo markaasi si game ah. waxaan ka bilaabayaa cashirka ugu horeeya ayaan kelig ku siinayaa lessonka ugu horeeya. markan keligaan ku siiyo I hear you want to type like a pro. Let's start by setting up your finger positioning. Look at the F and J keys on your keyboard. Do you see the bumps on each key? Close your eyes and feel for the bumps using your 2 index fingers. Take your time, but don't look. Did you get it? Your index fingers should always find their way back to F and J by feeling for those bumps. Now curve your fingers and bring your other fingers down on the next 3 keys on either side. This is called the home row position. For example, to type the letter U, your right index finger will travel up 1 key and then quickly return to the bump on the J key. Okay, before we start, there is only one rule you must always follow. Never, ever look at the keyboard while typing. If you follow this rule, your index fingers will quickly learn to find their way home by feeling for the bumps. Fast typists forget about the keyboard and don't even realize their fingers are at work. They feel one with the computer. After some practice, you'll start feeling it too. The computer becomes a part of your body and your mind is in full control. Let's get started. aan bilowno marka waxaa ku leeyahay cashirka intaad qoraysid ha fiirinin keyboardka. xarafka ugu horeeya ka bilaabeynana waa F iyo G. waxaad taabanaysaa marka index finger waxaa la yidhahdaa fartaada murugsatada ah saad u taqaano Soomaaliga. kadibna waxaad ku dhufanaysaa markaasi xarafka F ah iyo kadibna iyo J isla taabanaysaa. good job. u ka gudbaysaa marka practice-ka labada xaraf ee J ah wuxuu ku geenayaa markaasi meel kale ayuu ku geenayaa. kusoo xasuusinayaa mar walbaad qoraysid indhahada shaashada aadsanaadaan iyosan aadin waxa la yiraahdo keyboardka iska sax sida had shaashadaad ugu jeedi farahaada ku aadi. xarafka A waxaa ku aadaya farayarayda, xarafka kalena farta fardheertan waxaa ku aadaysa xarafka D, F waxaa ku aadaysaa murugsatada. sidaas ayaad ku wadaysaa. good job. next lesson. marka halkan markaad joogtid aad F aad qorto kadib waxaa ku jira meeshaasi space bar wax la yiraahdo oo ka sikanaysaa. meesha faaruq maahan oo micnaheeda inaad xaraf aad ku qorayso maahan. space bar ayaa lagugu ganaya meeshaasi say suulka ugu shaqeeyo. suulka waxaa la rabaa inuu shaqeeyo. shaqadiisa waxay tahay space barka